Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta raalli noqda dhammaantiin. Muuqaalkan in badan ayaad nagu sugaysiin waan dareemi karnaa, balse mashquul jiray iyo bishii Ramadaan oo ina soo hoos gashay darteed ayaan la soo daanay. Cafis ayaan idin weydiisanaynaa dhammaantiin. Insha Allah inaad nacfin doontaan waan filayaa. Haddii aad cafiskaas inaga aqbashay, commentiga inoogu reeb. Haddii aad weli aadan naga aqbalin kori hoos commentiga insha Allah. Aan gudagalna marka muuqaalkeena. Tirada xubnaha muslimiinta ee ururka ummadda muslimiinta kolkii xilka loo dhiibay Malcolm sanadii 1952 waxay ahaayeen 400 oo kaliya. 1960kii muddo 8 sano kadib waxa ay gaareen 30,000 oo xubnood, iyadoo oo loo tiiriyo sababta ka dambaysa inay ahayd dadaalada uu Malcolm X u galay faafinta iyo xoojinta diinta Islaamka. In badan buu u halgamay xaq u dirirka dadka madowga iyo inuu sheego in dadka oo dhami siman yihiin, isku xaquuqna yihiin. Hadallo yaab leh buu u jeedin jiray dadka madow, taasoo uu u caddayn jiray in ay la mid yihiin qofka caddaanka ah. Waxa uuna sidoo kale ku dhiirigelin jiray in aanay midabkooda iyo samayskooda aanay marnaba nici karin. Malcolm X sanadii 1964 waxa uu socdaal ku tegay dalal ka mid ah waqooyiga Afrika iyo bariga dhexe. Safarkaasi waxa uu ku dhiiriyay uuna caddeeyay hogaaminimadiisii ruuxiga ah iyo ujeedkiisa xagga siyaasadda. Isla sanadaas sidoo kale waxa uu aaday Makka kuna soo gutay waajibkii xajka, kaasoo ahaa midkii ugu horeeyay uguna dambeeyay ee uu tago Malcolm X. Xaajigu waxa uu halkaas kula kulmay dad tiro badan oo kala duwan. Waxa uu sheegay in dad ay kala midab yihiin oo ay walaalo yihiin uu soo arkay. Dalal dhowr ah buu sidoo kale soo maray. Markii uu ka soo laabtay xajkana waxa uu la soo noqday magac cusub oo ahaa Alxaaj Almaalik Al-Shabaas. Khudbadihii xaajiga waxaa aad u xoojin jiray codkarnimada iyo aftahannimada uu ku astaysnaa. Dadka madowgaahi aad bay u jeclaysan jireen khudbadihiisa, dhiirigelintiisa iyo weedhihiisa dantooda ee noloshooda joogtada ah ka hadla. Xawiisnimadii bishii Febraayo 21 sanadii 1965 waxa uu Malcolm ka jeedinayay hadal meel ku taala magaalada Manhattan. 3 nin oo qoryo ku hubeysan baa isaga oo fagaaraha taagan xabad ku furay. 15 xabadood oo ay kula soo dhawaadeen bay la beegsadeen, halkaas oo aanu dhaawiciisuba dhakhtar gaadhin kuna geeriyooday goobtaas. 39 jir isagoo ah buu nolosha sidaas kaga tegay. Allah u naxariistee geesigii dadka madow Alxaaj Almaalik Al-Shabaas oo loo garan og yahay Malcolm X. Inkastoo uu nolosha ka tegay, habnololeedkiisii iyo casharadiisii waa kuwo dunida guud yaal. Buugaag door ah, aflaam iyo dokumentariyo laga sameeyay noloshii Malcolm X baa dunida nool oo aanan dhiman weli. Taariikhda uu dunida muslimka ah iyo tan dadka madow uu uga tegay muddadii uu noolaa, muuqaalada hadalladiisii yaabka lahaa ee uu u jeedin jiray, iyo Allah u naxariistee hal adeegnimadiisii waa mid dad badan baraysa ujeedada nolosha, awoodaha qofka iyo siraha guusha. Waxaan halkan kusoo gabagabeynaynaa nooguna dhammaatay qisadii geesigii dadka madooba muslimkii dunida taariikhda kaga tagay Alxaaj Almaalik Al-Shabaas. Haddaba muuqaalkan haddaad ka heshay, like naga iloobin, subscribe channelka noo saar si aad inoola socoto, commentigana inoogu reeb oraahda. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegayaa. Salaamu calaykum.